Purchase your tracks. Okay guys, soo dhawaada anigoo ah Xusni oo kasoo jeeda 252 Guna Corner. Geeskan aan joogo waa Cambodia Asia. Showga waxaa hadda marti ah the big guy Mr. Idrus Ego Show. Saaxiib kusoo dhawaa showga. aad baan u mahadsanay saaxiib adiga iyo asxaabtaada oo dhanba aad baan idin salaamay Thank you saaxiib adaa mudan. Okay, so showga maanta wuxuu ku saabsan yahay retirementka ama fadhiisada lagu sameeyay oo well he retired by himself, Wayne Rooney oo ciyaari jiray Manchester United iyo Everton iyo wuxuu ciyaaray xataa is it Dundee America MLS. Which team did he play for again? I think DC DC, that's it. Dundee waa Scotland saaxiib meel haddana wuxuu u kusoo noqday Ingiriiska u ciyaaray Championship team Derby. Wuxuu ahay player coach I believe, player manager camal position kiisii. So what do you think maxay kula tahay retirementkiisa iyo situationka retirement ku sameeyay? nacam horta situationkiisu waxay anu already markii uu ka tegay Everton uu u wareegay isagoo markuu Manchester ka tegay I think he was 31 32 oo Everton u wareegay markiiba haddana uu yimid MLS-ka markaas ciyaartoy MLS-ka yimid daamis ciyaartoygaasi waa retire buu already galay Si fiican. unless uu yahay Zlatan Ibrahimovic oo kale oo deyntu dib imka Talyaaniga ugu noqday aad arkaysa wuxuu ka sameynayo isagoo almost 40 Ha sax. that's crazy markaad u eegto wixii dhan unless uu daad gaa yahay hadduu ciyaartoyguba China amba uu tago MLS ko waliba meelaha ugu liitaa marka China iyo laga tago Si fiican. ciyaartoyda lacaguna soo doontaan but derby markuu kusoo laabtay waxaan is idhi waa ciyaartiisii uu soo ceshanaya Rooney wuxuu ka mid ahaa ciyaartoyda ugu jecel ciyaartoy dhiig leh oo 16 jir Premier League Arsenal markii uu ka dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay Premier League 16 buu jiray 17 xataa muu gaarin Saaxiib David Seaman markaas way ka taalay saaxiib. Maalintaas David Seaman laakiin goolkaas xataa gool la qaban karaya muu ahayn gool wuxuu ahaa alaabta u soo wareejiyay unbelievable. Waxaa la watay Reebok boots saaxiib maaragtay unbelievable goal, unstoppable. and then Euro 2004 wixii uu ka dhigay waynaga arkinay isagoo weli yar Croatia. marka imika waxaan islahaa at least ciyaartoygu hadduu coachnimada soo barto uu time qaato second teamka uu tago and then uu time yar qaato then team yar uu kasoo bilaabo then maybe beriga hore waxay qaadan jirtay like 6-7 imika club oo kale how long bay ku qaadatay inuu soo gaadho the top intuu doorman soo gaadhayo keliya time qaadatay then Liverpool iskaga hadalkeeda so beriga hore time bay qaadan jireen wixii baa soo mari jiray laakiin imika waxaad moodaa ciyaartoydan dambe oo dhani let's go to cid kaleba aan fogaanin yaa ka horreeyay isaga Lambert 1 year retirementka full year mu dhamaysan markii derby loo dhiibay Si fiican. because adeerkii soo maaha Ragnar ayaa ula hadlay ninka so nacam waxaad moodaysaa ciyaartoyga cadaankii sida marka cadaanku uu mar kasta adduunkan uu kaga horeeyo madowga inuu coachnimadiina uu kaga horeeyo maadaamuu ninka nin cadaana yahay haddana ciyaartoy magac laana uu ahaa inuu easier ku qabsanayo so anu waxaan u arkaa uun inaanu khibrad amba waxay isleeyihiin derbi waxbuu ka bedelaya aanu ku qabsanine inuu kalarkiisa uu ku qabsaday iyo magacii ku lahaa Premier League iyo Manchester United. Si fiican ma waa kula socdaa. I 100% I agree with you. A lot of the time ereyga la fiirina Ingiriiska waxaa la dhahaa nepotism. I don't know Soomaaliga maaragtay wixii loo bedelaa nepotism. Like nepotism waxaa la dhahaa dadka cadaanka for example way sameeyaan iyo community-yaal kala badan oo lacag maalqameen nepotism waxa waaye markii adiga oo adoo u leeyahay experience ama khibrad wax aabaha ama familkaada maadaama power haystaan ee ku gelinaya position. For example haddaa aabahaada bangi ka shaqeeyo oo bangiga haysto oo waxaas adigoo oo weligaa iskool lagu geenin baa lagu soo qaadayaa bangiga manager lagaa dhigaya. You have no experience, khibrad uma lehid, wax uma lehid. Waa nepotism. waxaas inay cadaanka saasay adduunka ugu horeeyaan everyone. waxaa lagu dhahaa dan kabacdiina way imaanaya I work very hard, is my sweat tears balaaga wax kama jirto saaxiib. Listen, opportunity weyn aa lagu siiyey, waxaa lagu siiyey barando weyn, opportunity iyo meel oo lacag taalo, so you can now make it better. However, haddii la fiiriyo xataa Italian League they also do the same because like in the Italian League waxay Ingiriiska dadku Ingiriiska ugu fiican yihiin
and always for a long time waa technical technique and gaayaasha la siinayo coachnimo waxay haystaan khibrad xagga technique ah Pirlo waa nin maaragtay maskaxdiisa waa maestro Montella xataa coach ahay waa very good striker again dadyaal badan aa jooga maaragtay oo la siinayo coach but however I feel like Ingiriisyaasha ku ciyaara England I don't think they have the right education because the rest of Europe way naga horeeya for example haddaa fiirisid Edwin van der Sar school wuxuu kasoo baxay oo management kubadda iyo waxaaseeti wuxuu haystaa master degree iyo PhD waxaaseeti si loo maamulo maaragtay scouting iyo waxaas wuu yaqaanaa so he's already ahead of the game he knows SARS Mark Overmars Thomas Tuchel Jurgen Klopp Julian Nagelsmann Ralph Hasenhüttl dadkaanay khibrada u leeyihiin because they study the game way bartaan waxaanay also guyga oo maaragtay oo ah assistant coach Jose Mourinho magaciisa iga dhumay like a guy the new young Portuguese guy waxa la very good coach oo kasoo very amazing coach new technique waxa soo sameeya dadkaanay way ka horeeyaan kuwa Ingiriiska waa solely on name for example sheekada Manchester United legend Paul Scholes wuxuu aaday Oldham United oo ah Division 1 Division 2 lacag ma haystaan wax ma haystaan wuxuu joogay 2 weeks kabacdina uu ka tagay wuxuu dhahay there was no hot water in the shower iyo waxaaseeti I'm like, well, you should know this already. Oldham like ma haysato. Adiga waxa taa nin oo khibrad haga legend ka game ka. So why are saacad ama time u sii waysid? That's what I mean. I don't think they're very passionate. Markii imaado coachnimo. Waxa la dhahaa, oh yeah, he's a legend. So magacnimo like magacnimo kaligiisa meel kuma gaarayso. Henry waxa la sii Monaco for example. A very good time ma haysanin. For me, I think Monaco were too of a high level in my opinion. waxaa la siiyey Monaco unfortunately the first job did not work out waa normal jobka ugu koobay marmar waxaa nasiib like most of the time experience khibrad uma lihid so waa inaa hoos kasoo bilaawdid you must learn your education right so I think markii la imaado waa racism iyo waxaas isku duuban Sol Campbell xataa documentary ka fiirsanayo wuxuu dhahay I'm a legend ahay invincible CV-gayga waa fiican yahay I just want an opportunity I don't care which team manager ahay like I just want to learn like in teamyaal badan way diidayaan asiga iyo ins waa la diiday even guyga oo fiicnay Chris Hughton oo Newcastle u hayay he did such an amazing job kabacdina waa la eriyay straight away they got someone else instead waxay rabaan Bruce iyo Allardyce come on man Hughton for me was a very good manager even Tottenham حتى si fiican okay a good level you know kubad fiican ciyaarayaan waa loo buriyay at that season I believe one of the seasons team yaasha u hayay season kaasi meel fiican ay gaareen too and then all of a sudden he already smashed achievement kigo uu ka sii horeeyay gabadha waxa la saaxib sorry we want someone else so I don't know meel loo wadaa ma jiro Henry oo kale usually ma fiicna time haddii teamka oo hoos u dhacay Monaco iyagoo hoos u dhacay oo lagu jiro seasonka dhexdiisii oo ciyaaro badan laga badiyay ayaa ciyaartoy ma soo iibsan karo waa inuu use gareeya ciyaartoy garoonka ugu jira oo teamka markaas ay haystaan ilaa inta laga gaadhay xilligu wax soo gadan karo marka teamkii haddii weli sidii looga badinayay ama looga reynayay looga badiyo maaha coachka because teamkani maaha teamku isagu keensaday waxaa la siiyaa time uu kusoo gadan karo ciyaartoy 3-4 ciyaartoy then hadduu teamka u badin waayo markaas la keeno Monaco waxaan u malaynayaa markaas sidee u socotay because coachka eriyeen ayay Henry haddana dib ugu bedeleen ninkii eriyeen bay soo celin markii Henry eriyeen haddana marka kii wuxuu wadeen qaab qaldan buu ahaa laakiin it's more like madowga time-ka la siinaya aad buu liitaa نعم ملي أنا حتى هدوم مدوي هاي الله سيو شخص رأي الله سيو لكن سيد تايم كي هلا يمكن جرمن كوكل كوتشيش كوكو في عيا إسكالة يمكن جرمني بإسكالة for sure because school كي كسو بحان يه تايم كي خاتان وتايم في عنويان قاب كي أو عيارسيان يمكن زيدان أوكل مركلو دي بير ريال مدريد روحو هايستي season and half روحو هايستي team كيرير and then there was season كي Champions League كا قاعدة يه أنجلوتي وتينا أنجلوتي بلا شوكي كوتش كيان بوها so time بو ير هايستي حقنا أنجلوتي وين season بو كوتش كيان وها حقنا season and half بوها so waxa la oran kara experience buu ka soo yarqaday coach kaas oo imka Arteta kale Pep Guardiola ka soo qaatay experience yar oo time yar buu ayu qaatay so at least coach ka noocaas oo kale waxa oran kara maadaama uu coach kan at least one season uu team ka training la sameeyay uu og yahay qaab ciyaareedkiisa tacticalkiisa sidoo uu shaqeeyo at least khibrad buu haystaa
waxbuu qaban karaa laakiin hadduunu ciyaartoyga coach ku-xigeenba noqon assistant cidba u noqonin oo la yidhaahdo first teamka oo big teamkan buu noqonayaa oo Derby County buu maanta shalay uu ciyaarayay Rooney laakiin tomorrow isagii baa coach ah oo like Vieira waxa jooga Vieira oo team weyn qaban kara maanta because Derby County isma iyo kooxaha Francisco isku mid ma Vieira chance in la siiyay Sol Campbell chance in la siiyay Bowling chance la siiyay nacam coachkan time-ka waliba soo galiya tiimamka yarar soo qabta haddii chance la siin lahaa cilmaan qabeen laakiin mar qura un baa lagu leeyahay waa Rooney waa Lampard waa Steven Gerrard maadaama magac leeyahay cadaan leeyahay soo qabta marka coachnimadan Ingiriiska sida ciyaartoyga u buunbuunayaan ay magaca weyn ugu sameeyaan ciyaartoyga waxba ay uma imikana bilaabeen bariga hore mabay oo qoon sidaas then waxaan u malaynayaa next 5-10 years ciyaartoyga wada cadaanka wada garanayeen daawan jirno baa ka noqonaya coach because playing sumna ciyaartoy Arsenal Chelsea because Drogba magac weyn buu Chelsea ku lahaa imika Sol Campbell sidoo kale Henry sidoo kale miyad islahay Arsenal baa Arteta u dhiibay Fiore joogay Arsenal Arteta muxuu ciyaaray Arsenal balor how long was he ciyaaray very short markii Everton laga keenay waa last minute January magacu ku leeyahay muxuu yahay muxuu qabtay halku Arsenal gaarsiiyay nowhere Vieira jooga meesha then where is Vieira that's the thing for some reason also fanyaasha markaa fiirista okay I think markii la dhaho kubadda iyo politics waa isku mid hadii la fiiriyo because dadka fanyaasha waxay shahbadaan meesha degan tahay opinionkooda for example yeah so a lot of time hadda maadaama Trump iyo waxaas ay joogo hadda hore u sii baxaya alxamdulillah lakin a lot of people Ingiriiska was a very racist country like the rest of Europe it was normal dadkii monkey ku wici jireen Mose kusoo tuuri jireen all of these players you know like Cyril Regis iyo dadkaas ay markay ciyaari jireen lakin haddii la fiiriyo the average football taageere Ingiriis cadaan wuxuu connection la leeyahay kuwa cadaanka that's it right waxay u haystaa madooga madooyaashan markay dhaliyaan they always dancing samaha guduudsadaan all this nonsense right so cultural difference naga dhaxeeyo hadii la fiiriyo that's why dadka Manchester jooga waxay u necab yihiin Paul Pogba so much why because happy waaye timaho color masada waa young iska qaraxaysadaa he's enjoying himself but kubadda cagta marka la fiiriyo around the world a lot of people style kooda waa saas goal dhaliyaan they do this waa normal laakiin marka la Ingiriiska waxay jecel yihiin someone like Scott Parker oo Ohio for example Fulham Scott Parker he was an okay player like a man player u qalmo in la siiyo coach nimo just because fanaanada short code dhex gasi jiray oh this guy was old fashioned no it doesn't matter Vieira was very good coach Nice oo hayay very good team hatta oo hayay he did very well balayaal fiican joogo for example Eric Abidal I think Barcelona wax laga siiyay hadda Claude Makélélé Chelsea jooga I think he's helping Lampard defensive coach waxa soo kamid yahay laakiin balayaal badan jiro or in like in a backroom staff saas lagu sameeyo because I'm not saying straight away gilly playeryaasha front madam coach ka dhigo lakin make them coach of attacking coach of midfielder kabacdina the next steps because you already know process club ka dhaxeeyo lakin unfortunately waxaanay waa color coded you know and that's why coach nimo so I believe in a dadkanay coachyaal kala meelaha kala ka sameeyaan for example I think Francisca waa iska caadi they give you a chance madam lakin marka la Ingiriis waxay jecel yihiin English players only regardless of experience or anything. Only very lucky you are waxaa laga keenay Norway, Molde, it's not a very big club. Henry, Monaco joogay. They have other players as well that can do a good job. Like in markii la dhaho coach Nimo was purely based on inay cadaan tahay unfortunately because hadda saas waa button waa arkuna sida noo sharaxeen unfortunately so I don't understand like Sol Campbell wuxuu joogay long time Paul Ince Man United fans were weydii kartaa they're like oh he was an amazing player tough guy amazing Inter Milan ciyaaray Liverpool ciyaaray Man United he was a high of his game Sol Campbell unbelievable so why loo diida inay naqdaan coach it makes no sense ole oo weligii Manchester United line-up kamu noqon markasta teamka fadhiyo uu soo gali jiray 10 minutes 1 minute that's it super sub haddana wakaas maanta isagaa teamka u talinaya wow I don't know like in England yeah they tell you oh racism iyo waxaas had the BLM waxaas laga joojiyo because dad badan baa complaint sameeyeen hal jilib dhulka loo sameynayo all this nonsense and for example I watch Sky Sports waxaa jooga guyga Manchester City ahaa jiray Mika Richards very funny guy like waa wiil oo maxaa la dhahaa very good heart oo qaba needs waa clean waa safi and wuxuu dhahay listen the problem is dadkanay waxay ka caronayaan 1 second dhulka jilibka 1 jilib hoos loo dhigayo
but why? He's like the reason why already a complaint u sameeyay already waxay ku tusaysaa inay problem ku qabaan markii la lahayo cunsurinimo iyo color iyo waxaas inay maqlaan ma rabaan so ingiriiska maadaama ku soo koray ma jeclo inay ka hadlaan waxaaneti laakiin they gurigooda way cunsuri ku yihiin unfortunately like markii oo hore loo tago like hey what's your feeling face to face they don't want to say anything they want to avoid ma fahamtay so inta waa wax isku duuban waa cunsurinimo waa all sorts of things haddii xataa qof madow la siiyo jobka all the time they get paid lacag yara la siinayo for example Henry hadoo qabto Manchester United I'm sure less than Oli la siinayo even though Henry was champion World Cup champion waxaa city Champions League CV is unbelievable better than someone like Ole like in Ole madamo or adan yahay I'm sure they pay him even more so waxaan joognaa adduunka yeah that's what I mean I think hata we need to make African leagues much better that's why hata Asamoah Gyan u joogo in Ghana ka ciyaaraya marmar waa fiirsa gameyaasha Ghanaian league so asiga he's planning to make the games there more popular so in Somalia amal laga fiirsada Stan TV equivalent YouTube la soo geliyo free sponsorship waa in maaragtay hami loo yeelo because that kind of everyone oh Manchester Arsenal but it's also good to have kooxdeeda waa horseed kooxdeeda waa dekada you need to have that connection too you know so that's the way forward inshallah in gaari doona hadii la yiraahdo inaguna xaflas si fiican kan ugu dambeeyay wuxuu ahay for example hadda maadaama Rooney oo maaragtay retire sameeyay oo haddana coachnimo rabo mukula tahay inuu u qalmo ama do you think he will do better or do you think waa la sagaranaya due to lack of experience I think time way seen doonaan at least season inta ka hadhay laakiin derby waa team way oo Premier League game badan ka ciyaartay ma teamku ugu weyn bay ku jirtaa Ingiriiska so it depends ciyaartoygaas hadday noqdaan haddii January imka loo keeno 3-4 ciyaartoy like Lampard oo kale muxuu isticmaalay ciyaartoy badan oo Chelsea leedahay ama ku isticmaalay then haddii markaas sidaas oo kale isaguna ciyaartoy Manchester leedahay ama Everton leedahay uu ka faa'iideysto ciyaartoyga isticmaalo deetana at least top 10 ka soo geliya teamka maybe one more season in la siiyo laakiin haddii teamka halka imkay taageen wax ka bedeli waayo I don't think any chance inta ka dheersiinayaan laakiin at least seasonka way u ogolaanayaan seasonka dhammaystiran qabo unless the teamku hoos u sii dhaadhaca mooyaan si fiican I agree like hadii la fiiriyo Rooney don't get me wrong wuxuu ahay amazing player oo dhiig ku jiro like very very nice player to watch 100% will gali jiray speed power everything goolyaal fiican he was very consistent especially against Arsenal goal badan oo lagu dhaliyay unbelievable guy wuxuu noo noqday Didier Drogba amal saaxib he will this guy every time la imaado Arsenal he would always score one goal guaranteed laakiin markii la dhaho coachnimo qof kasta uma qalmo coach dad qaar some people were good some people not good for example Henry coach oo noqday like aniga maadaama he was my favorite player I don't think inuu qalmo coachnimo dhiigis kuma jirto just personally speaking the way oo maaragtay oo uga hadlay gamekii waxaas I don't think inuu u qalmo Zidane wuu u qalmaa Pirlo wuu u qalmaa Lampard I think he's forcing too much in my opinion so just because waxa ahayd amazing legend guy automatically kuma siinaysa license ku samaysa coachnimo you know we're two different things you can be an amazing player but ma lead garay kartaa the 22 players 24 players plus backroom staff or boqol qof massage guy a guy with video analysis wow very very difficult job you know so dada u qalmo dadna uma qalmaan but it still doesn't mean you are not a good player dad waxa jiro kubadda cagta ku fiicneen like what amazing coach Arsene Wenger was never an amazing player like kubadda uu ciyaar low level Jurgen Klopp wuxuu ciyaar Augsburg he wasn't the most amazing player waxa waa basic like markii imaado coachnimo iyo waxaaseti waa very very good Guardiola wuxuu ahay players ka okay he wasn't the best he wasn't like a team wuxuu ku soo koray like or very difficult team so so team fiican oo ku jiray waxa joogay for example I think Van Gaal oo ku soo koray waxa joogay odagii muxuu ahaa dhintay which one I'm trying to think Aragonés no odagii Hollandiiska Van Basten miya mise no Barcelona ba ciyaarta ka bedelay muxuu ahaa magaciisa guyga Total Football forgot his name cancer ka u dhintay صح Van Basten ma muxuu ahaa magaciisa kale Cruyff Johan Cruyff
tiimkiisiba ayuu kusoo baxay so wuxuu mar la ciyaarayay Ronaldo la ciyaaraya wuxuu la soo ciyaaray York buu la soo ciyaaray wuxuu la soo ciyaaray Romario la soo ciyaaray tiimkii Barcelona ugu fiicnaa markaas soo maray Stuttgart u ciyaaray tiim Luis Figo la soo ciyaaray Rivaldo la soo ciyaaray tiimka ugu fiicnaa Barcelona la soo ciyaaray so he had a very good team qaab ciyaareedkiisa oo ciyaartay fiican oo sida Fabregas oo kale ku fiican very slow buu amu wardi jirin but still marka ciyaartay kala la barbar dhigo markii la dhaho like markii la dhaho was an amazing player no asigii markii isdagaaleen Samuel Eto'o maadaama aad u jeclay Eto'o markii isdagaaleen Eto'o wuxuu dhahay so let's be honest adiga waxa you telling me what to do but you were never the best goal scorer in the world you know so like and also show kala sameynayna ka galeyna like in Pep Guardiola I believe wax cunsurinimo iyo wax ku jirto maadaama he's always dadka madowga riixa for example Yaya Toure for me was amazing as soon as Man City imaado waa laga bixiyay Eto'o another amazing player so these guys or markasta he's trying to like kill they're not like Balotelli ma ahan Balotelli maskaxdiisa waa caadi ma ahan like these guys were consistent players Eto'o marka uu imaado Chelsea he was still scoring goals you know were amazing players like and I think ku jiro wax like at the same time I was reading Zlatan's autobiography and he was talking about this guy he was like this guy he's not a man one is the guy like he didn't tell me the reasons he couldn't look me in the eye training to come to tell me to kick the ball wow unbelievable sahib crazy so anyways waan kasii gudubnay so I think waan soo koobnay maadaama la dhahay retirement iyo coachayaasha cadaanka marka kasta hoos kor loo dhigayo markii imaado manager-nimo so saas ku dhamaynayna showgaaneti fadlan please like share subscribe anigoo xusni oo sameeyo 252 guna corner oo maaragtay fan Arsenal ugu weyn like maadaama hadda waxay iska gaabsado wiilkayga saaxiibkana Idris Ego Football Show Facebook oo qaba as well make sure you like share comment subscribe video and channelkayga ka soo bixinaya also I will add all his description ko gelinaya Idris what would you like to say maadaama hadda showga gabagabada ku jirto inshallah waxaan ku oran doonaa reer Arsenal way soo socotaa shahina sii qaada time-kiina qaata so next 2 3 4 years inshallah Champions League waa soo laabanaysaan teamka meeshu rabay u soo gaari doonaa iska samra saaxiib adigana aad baan ku salaamay hadii ilaano aan jecelahay in samirka ka bartay inshallah saaxiib waa maasan tahay okay guys san iyo mar kale saas isku ognahay guys peace out take care purchase your tracks